waan idin salaamay mar kale aad baan idin salaamayaa asxaabta sharafta leh ee ku taxan page-kan channelka runta u kaalay saaka waxaynu soo qaadanay casharo ku saabsan ilaahay waa kuma ilaaha bible-ka iyo ilaaha qur-aanku ma isku hal ilaahba mise way kala duwan yihiin waxaynu soo qaadanay sifooyinka uu ilaahay isku muujiyey kitaabka quduuska ah ayaynu soo qaadanay oo qaar badan oo ka mid ah oo san qur-aanku ku waafaqin marka cashirkii saaka ayaan dhammaystiraynaa waa cashirka saddexaad qaybtiisa saddexaad weeye hadda cashirkan aan hadda qaadanayno marka fadlan saa ila soco waxay leedahay weli waxaynu ku jiraa injiilka iyo siduu ilaahay isugu muujiyey qaala lahu yasuuc ana huwa الطariiq والxaq والxayaa laysa axadu yأti ilى الآab إلا بي لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه قال له فيليب marka aayadahani waxa weeyaan waa aayado runtii aad u xiiso badan waxay ka hadlayaan waxaynu ka soo hadalnay saaka inuu ilaaha bible-ku isku muujiyey qaab saddexnimo ah waxaynu ka soo hadalnay kale inuu aabba yahay iyo inuu ciise masiix ku jiray marka cashirku saas ku saabsan yahay maanta waxa weeyaan ilaaha bible-ku oo injiilku uu inoo soo gudbiyey waa aabe oo wuxuu ku jiray ciise masiix oo ciise masiix ayaa laga dhex arkay waana loo sujuuday oo waa la caabuday ma garanaysaa marka sidan ayay leedahay ayaddu qaala lahu yasuuc marka nin ka mida 12 xawaari oo la yidhaaho Philipos ayaa ciise masiix markuu aabbaha ka hadlayay isagu ilaahay aabba ugu yeedhaa ilaahay uguma yeedho markuu aabbaha ka hadlayay waa ilaahay ayuu wuxuu yidhi marka xertu xogaa way isku yar wareereenoo waxa weeyaan sida maantaba dad badan ay ugu wareeraan tawxiidka masiixiyadda iyo trinity-ga wareerkaas xataa xertiibuu ku jiray to be honest with you san si daacada idinku warramo oo markasta caqliga bini aadamka ku kooban yahay marka ilaahay laga sheekeynayo waxa weeyaan ilaahay waa غير محدود xad ma laha bini aadanka iyo caqligooda iyo garaadkooda iyo garashadooduna xad bay leedahay marka inagu ilaahay ma koobi karo oo ilaahay caqligeena iyo garashadeenu ilaahay ma qaado marka bini aadankii iyo ilaahay marka xidhiidheen bini aadanka wareer badan ma ku dhacaya oo ma koobi karaan amaanta ilaahay iyo awoodda ilaahay iyo ilaahay ma koobi karaan marka xirta wareerkaas ku jira marka Philip baa yidhi ciisow sayidow rabbi bay oran jireen iyagu macallinow ilaahayna tus buu yidhi isagaa nagu filan aabbahana tus isagaa nagu filan ya wahada kafana buu yidhi arina al-ab wahada kafana buu yidhi af carabi weeyaan aabbahana tus taasaa nagu filan wareerka iyo su'aalaha madaxayga ku jira ayaa baxaye aabbahana tus ayuu yidhi su'aashaas ciise masiix codsigaas uu weydiiyey ciise jawaabtiisii baynu akhriynaa marka qaala lahu yasuuc marka ciise masiix ayaa u jawaabay yasuuc وعربي أو وعيسى أو عربي يسوع المسيح بالله waa yeshuuc almasiix weeye noqonaysaa yeshuuc bay noqonaysaa hibrooga yeshuuc marka qaala lahu yasuuc ayaa ku yidhi anaa huwa atariiq walxaq walxayaa aniga ayaa ah waddada iyo runta iyo nolosha laysa axadun ya'ti ila alabi ilaa bi ninna ilaahay uma yimaado u yidhi aan akhriyo maya macnahaan ka daayo أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الأب إلا بي لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه وير وستيدمنت آد وين أما أوجيسيس آد وين ويان عيسى مسيح وحو كيري حرتي بكيري أنا جا وضدا يرنت ينولش أنا أوجي يا marka nabi maaha ciise masiix nabi caadi maaha nabi wuu ahaa laakiin nabigu ka weyn yahay meesha nabi kaama muuqdo ana abu yiri runta iyo wadada iyo nolosha ma nabi saa yiri baa jira ambiyadoo dhan waxay ahaayeen fariinta ilaahay bay heli jireen oo dad caadi ah ahayn oo dadkii tooshka ugu iftiimin jireen jidka ilaahay loo maro oo jannada loo maro badbaadada loo maro halkaas loo maraa ayay oran jireen ninna farta isagu iskuma fiiqin ciise masiix wuxuu yiri aniga ah wadada iyo runta iyo nolosha يعني حويان إسلام كوحوا مثلا إن عيسى المسيح والنبي ها كتاب إنجيل اللي هان لجوسو دكتي عشان تصار معهين إنجيل كوا عيسى المسيح بوك سما ده كسود دقي معهين السجا أياه أنا جا أقول أنا هو الحق والحياة والطريق أنا أودد يرونتا ينورش
waddada ilaahay loo maro iyo runta iyo noloshuba aniga buu yidhi ma fahmaysaa marka statementkaas ama ogeysiiskaas ayuu bixiyey wuxuu ku daray oo kale wuxuu yidhi nina ilaahay uma yimaado laa axada ya'tii lilab ilaa bi nina aabbaha uma yimaado inuu aniga isoo maro oo aniga uu xaggayga ka soo galo xaggayga uu aabbaha uga yimaado mooyaane nina aabbaha uma yimaado buu yidhi aniga ayaa dariiqa keliya ee aabbaha loo maro saasuu yidhi soomuna anaa huwa ariiqu walxaqu walxayaa waddada ilaahay loo maro iyo jannada loo maro waa aniga buu yidhi nina waddo kale ma jirto buu yidhi oo jannada loo maro saasuu yidhi wuxuu ku daray oo wuxuu yidhi low kuntum caraftumuuni lacaraftum abi buu yidhi haddaad aniga i garan lahaydeen ilaahay waad garan lahaydeen buu yidhi waqad caraftum ilaahay waanad garateen buu yidhi ya aan ku akhriya aayaddaas low kuntum qad caraftumuuni lacaraftum abi aydan wa min al'aana tacrifuunahu waqad ra'aytumuuhu buu yidhi haddaad aniga i garan lahaydeen ilaahay waad garan lahaydeen ya ha ilaahay waad garan lahaydeen haddaad aniga i garan lahaydeen ilaahay waad garan lahaydeen buu yidhi aan kuu saxiix haddaad aniga i garan lahaydeen ilaahay waad garan lahaydeen waanad garanaysaan waanad aragteen buu yidhi waxaan culimada islaamka in badan ka maqlay meelna tusa masiixiyiinta nimanka apologetiga ahee masiixiyiinta la dooda na tusa meeluu ciise masiixi ku yidhi anigaa ilaahay ah ee halay caabudo ayay odhanayaan ya nimankaasu inay aniga ila soo xidhaan aad baan u jeclaan lahaa run baa fiicane laabgaraacna ma aha iyo faan ninkii haddaad aniga i garan lahaydeen ilaahay waad garan lahaydeen buu yidhi waanad garanaysaan waanad ilaahay dee mayna arag ciise masiix bay arkayeen xirtu ya لعرفتموني يا لعرفتم الأب لو كنتم تعرفونني لعرفتم الأب يا هداد أنا قرن لهيدين إلهي واد قرن لهيدين وانا قرن إنسان وانا أركتان بوير مركا عيسى المسيح بيحرتو أركان لكن وحول إلهي بعد أركتان بوير سولياب ما هو وقيسيس آت أوين ويان يا لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا هداد قرن لهيدين إلهي واد قرن لهيدين ومن الآن تعرفونه إلهي واد قرن إنسان وانا أركتين بوير مركا إلهي بعد أركتين بوير مركا أنا أركتين إلهي بعد أركتين بوير قال له فيليب مركا فيليب واتم ماشي أنو سعودية وان كدك دقايا فيليب باوحو يدي أرينا الأب وكفانا إلهي نطس إساقا نقف لنا بوير أبها نطس إساقا نقف لنا مركا ساوي حكو يدي وحكو يدي جواب تسان عربي كو أخريو تانا كو صومالي يعني هذا يدك ديق الدونتي قال له فيليب يا سيد أرينا الأب وكفانا قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليب الذي رآني فقد رأى الأب فكيف تقول أنت أرينا الأب وحيلي فيليب أو ما أنا قو أنت صوصنا إذن لتشوقي أياد إقراني نبوير يا ما أنا قو أنت صوصنا صدح سنة برد بلا تشوقي بيدان علماء مسيحيين ومسيح ودعوة دي سوذي أنت أنا لديلنا لما شذا كسرك عينه السماء آدم مركب وحيلي ما أنا قو أنت صوصنا إذن لتشوقي وقت الساعة أودر إذن لتشوقي أيانا إلى هاد إقراني نبوير miyaadan rumaysnayn buu yidhi inaan aabbaha ku jiro aabbuhuna aniga igu jiro buu yidhi ya inaan anigu aabbaha ku jiro aabbuhuna aniga igu jiro buu yidhi waa arrin la yaab leh soo maaha waxa weeyaan haddaad aniga ay aragteen aabbaha waad garan lahaydeen waana aragtaan oo kale weeye ومن الآن وحيده قال له فيليب يا سيد أرنا الآب وكفانا قال له يسوع يا أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليب الذي رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب نيكي أنا جاي أرك إلهي بو أركي سيدات قول لي هاي إلهي نتوس نيكي أنا جاي أرك إلهي بو أركي بركا لما علماء المسلم كي أرانا نتوس ميلو عيسى المسيح إلهي نمدا كشكت واتن وإنجيلك يوحنا عتبك أفري طبناد آيات سديدات إلى آيات طبناد وي ninkii aniga ay arkay ilaahay buu arkay ayuu yidhi oo warcad ah oon muran ku jirin madmadow midna wuuna ilaahayna wuu sheegtay shaqadii ilaahayna wuu qabtay ciise masiix filimna wuu ku qabsaday oo xirta ka mid ah sayid ii tiraha buu ilaahayna tus waabaad aragtaabe saasuu ku yidhi fakayfa taquulu arina alab
يا سيدات أترها إلهي نتصبر وابد أرك تابع ألست تؤمن أني أنا في الآب والأب فيا ميان الرميسنين إن أنا وأبها كتشرو أبوهنا أنا كتشرو ميان الرميسنين بوليه إنه إلهي أنا كتشرو أنا إلهي كتشرو والسيدة سمعلك يا ميان الرميسنين إنه إلهي أنا كتشرو أنا إلهي كتشرو مركز سؤاشي بكو قبصدي سيدي قرنوي دا بكوير ألست تؤمن أني أنا في الآب والأب فيا الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي لكن الآب الحال فيه هو يعمل الأعمال مركا وماشي كتمت عقيدة حلولية وحيري أنا أبها كجرا أبوهنا أنا كجرا نيكي أنا جاي أركي إلهي بو أركي waxaan aan idin leeyahay anigu iska malihi oo hadalkan iyo fariintan anigu malihi ilaahayga igu jira ama aabaha igu jira ayaa iga dhaxalay buuri marka meesha aqeedada xuluuliyadu ay ka timid oo aqeedadaas waxay ku abtirsataa qola muslim ah oo firqa ah oo ibn arabi iyo filaya ibn arabi ninkii la dilay aqeedadana lagu dilay wuxuu ilaahay baa ku jira buuri jirkayga ilaahay baa ku jira marka halkaas ay ka timid ya muxuu yiri marka ciise masiix إلهي بقى يقول هذا الكن عليه أنا أقول هي إلهي بقى يقعد حد ليا أبوي ساسويل يا ساسويل الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم من نفسي هذا الكن أنا ليه أنا أقول هي بها يقول أي يقعد حد ليا ويوحنا أفريت طبعا سديد إلا طبعا وين كاسع ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا وحي هذا قدبك كلاه وحويان إله بايم الكسوجد بيي والروح ويان والروح شرك عيسى المسيح أيو اسكم وجهه لكن والروح jirka ciise masiix wuxuu isaga muujiyay in dadka dambi dhaafkooda uu u qaato ya dadka dambi dhaafkooda ayuu jirka u qaatay marka jirka ciise masiix ee maryama ka dhashay ayaa bini aadan ahaa ruuxa ciise masiix ee ku jiray ee ka dhex shaqeynayna ilaahay buu ahaa sidaas ayuu wuxuu lahaa laba dabeecadood dabeecad ilaahi ah iyo dabeecad bini aadan ah waxa magacyadiisa kamida ibnullaahi ibnul insaan wiilka ilaahay iyo wiilka aadanaha labadaba waa la dhahaa ciise masiix wiilka aadanaha waxa weeyaan aadanana uu ka soo jeedo hooyadiiba bini aadan oo maryam ka dhashay waana wiilkii ilaahay oo xagga ruuxa samada ayuu ka dhashay oo ilaahay ayuu ka yimid waa wiilkii ilaahay oo xagga ruuxa spiritual son weeyaan marka ibnullaahi weeyaan waana ibnul insaan macnaheedu waa samadana uu ku abtirsadaa dhulkana uu ku abtirsadaa ilaahay iyo dadka oo coloobay ayuu heshiisiyay wuxuu dhex dhigay bridge lagaga gudbo oo ilaahay loogu gudbo oo dambiga lagaga talaabo ya ayuu sameeyay marka calaamada isku talaabta waa meesha ka timid isku talaabta calaamada isku talaabta waa calaamad jacayl weeyaan dhinaca masiixiyada waa calaamad jacayl dhinaca muslimkana waa calaamad colaadeed weeyii ifahmaysa calaamad colaadeed weeyii marka waxayna calaamad colaadeed ku noqotay dhowrkii 100 ee sano u horeysay masiixiyada waxa weeyaan calaamadan crosska ama isku talaabtu muslimku bushi kamayna qabin oo dib kama soo gaarin laakiin waxa dhacday xilliyadii qarniyadii dhexe middle age-ka in muslimka ayaa ku duulay European-ka ku duulay qaaradda Yurub ku duuleen muslimku ya wuxuu ahaa Yazid bin Muawiya ninkii ugu horeeyay badda Mediterranean ka gudba ee jasiiradda Qobrus qabsada ciidanka badda ee muslimku marka Spain bay qabsadeen Faransiiska qayb ka qabsadeen dhul badan bay qabsadeen muslimku carabta waqooyiga Afrika oo Christian ahayd wadamadooda cagta mariyeen way qabsadeen muslimku waa meesha dhiiga ugu badan oo ku daatay waxay ahayd Tunisia iyo Morocco iyo ahayd dhiiga ugu badan meesha uu ku daatay maraakiibta la isku xidhan jiray markaas 5,000 oo nin iyo 5,000 oo nin banan seef la kormari jiray marka sidaas ay ahayd marka European-ka la ihaaneystay oo la jabiyay oo lagu duulay oo wadamadoodii inta badan qaar badan la qabsaday إلا راشيا موسكي كل واحد مسلمك واحد ما أنت لو يقانو جمهوريات كاتحاد السوفيتي الأورنجري كازاخستاني كيرغستاني أوزبكستاني يا تركمانستاني وحنا ودن راشيا أي كتر سنين قار كم يدو مركا عكتا الأمريكي مركا يوروبيانكو
waxay doonayeen inay sharaftooda isla soo noqdaan oo dharbaaxa kale carabta ku dhuftaan iyo muslimka marka waagaana ma jirin waxaan loo yaqaano national service ama in dhalinyarada xoog ciidanka loogu qoro ma jirin ama gurmudka qaranka miyaa la dhahaa in shaqo qaranka loo adeego wadamo badan baa hadda saymarka ardayda secondary ka baxaan 2 sano oo tababar military la siiyaa oo wadanka u adeegaan waxaas ma jirin marka waxa la yiseen dadka dhalinyarada ku dagaalgelinaa waxa la yiri waxaynu xoreynaynaa Baytul Maqdis Jerusalem baan xoreynaynaa muslimkana waan iska dhicinanaa wadamada inaga qabsada dhinactan marnayna markaasay soo qaateen cross wadaadadii marka ayaa u iftooday waxa la yiri marka cross baa lagu dagaalgalay crusade baa loo bixiyay marka crusade ayaa loo bixiyay waa meesha ka timid xuruub saliibiya ya markaasay soo duuleen carabtii cagta mariyeen magaalada Qudus dad badan ku laayeen oo dhulkaas oo dhan qabsadeen dhulka maanta Israa'iil iyo Falastiin la isku yiraahdo dhan bay qabsadeen waxay sameeyeen ciidanka Yurubiyaanka soo duulay oo boqorkii Faransiiska uu sareeyay xadgudub aan la qiyaas kareynin dad aad u tiro badan ayay laayeen xataa muslim iyo masiixiyiintii bariga dhexe carabta ahayd iyo yuhuudba ay ku jiraan markii dambe ilaa Salaaxudiin al-Ayyubi uu cayriyo cagta mariyo iyagii dhulka ka qabsado oo xataa dadkii ka xoreeyay ay qabsadeen ya marka dagaalkaas waxa lagu dagaalgalay isku talaab bay ahayd shicaarka ciidanku wuxuu ahaa cross muslimku waagaasay naceen crosska marka maanta haday cross arkaan isku talaab markay arkaan a'uudu billaahi ba oranayaan way xanaaqayaan laakiin crossku ama isku talaabtu waa calaamad jacayl weeye xagga masiixiyadda oo waxa weeyaan waa ilaahay iyo bini aadanka oo coloobay oo dambi kala fogeeyay bridge-kii ma garanaysa heshiisiinta weeyaan ee la kala dhexdhigay webiga colaada webiga dambiga ciise masiix baa yimid oo jid intuu soo qaatay dhiigiisii iyo jidhkiisii dadka u bixiyay oo isku talaab ku dhintay marka waa calaamadii badbaadada iyo jacaylka saa daraadeed baa kiniisadaha loogu dhajiyaa oo masiixiyiin badan u xidhaan isku talaabta marka may fahantay marka perspective-kaas nin walba waa dhinac uu ka eego nin walba dhinac buu ka eegayaa muslimka caadigu waxay ka eegayaan dagaaladii xuruub saliibiya oo calaamadii lagu soo duulay iyo gumaysiga iyo dadkii caadiga muslimka ahaa ay soo qaateen masiixiyiintuna waxay ka eegayaan calaamadii iyagii ilaahay lagu heshiisiyay weeyaan marka waxa weeyaan sidaa weeyaan aan socono marka waxa iman doonta wiil ciise masiix xilli kuwa ilaahay caabudaya ee dhabta ah ay ilaahay ku caabudi doonaan ay aabaha ku caabudi doonaan aabaha yani ilaaha masiixiyadda iyo yahuudu waa aabba weeyaan ciwaanku waa sidaa waa aabe xilli ay aabaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta wiil aabuhu wuxuu doonayaa kuwaas cibaadadaasuu doonayaa ruuxa iyo runta ya maxaa yeelay aabuhu waa ruux allah ruux ayuu leedahay ayadu aan kugu celiyo mar kale ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا وإنجيلك يوحنا عتبك أفراد آية 23 24 مركا آية وحي لهي إلهي وروح waxaynu ka hadlaynaa ilaahay waa kuma bible-ka iyo quraanka ilaaha islaamka iyo ilaaha masiixiyadu iyo yahuudu ma isku mid baa mise way kala duwan yihiin marka ilaaha bible-ku waa ruux oo jid malaha meel physical ah oo qaataa ma jirto sababtoo ah biyaha badda caagad biyo kuma dhaamin karaysid ma qaadan ka koonka abuuray wuxuu abuuray ma qaado isaga koonka abuuray marka koonka oo dhan uu ka wan yahay isaga yaqaan marka ruuxu weeyaan meel kastuu jooga ka Australia jooga iyo ka Chile jooga iyo ka Peru jooga iyo ka Pakistan jooga iyo ka jooga Seychelles iyo Tanzania intaba isku mar buu la joogaa isku mar buu maqlayaa ilaahay marka ilaahay waa ruux meel walba ruuxiisa ayuu ku joogaa marka ilaahay waa ruux bible-ka ciise masiix buu iska muujiyay isagoo ruuxa ya oo isagoo jir ciise masiix muuna gelin way ciise masiix jir buu lahaa isagoo ruuxu waa invisible oo ishu ma qabato ruuxu albaab micliyo ruuxa graphic uma taliyo oo samada iyo dhulka iyo meeshu doonu u duuli karaa oo meeshu doonu tagi karaa oo meeshu doonu ka bixi karaa ciise masiix xirtiisa oo cabsanaya
markii la dilay ee la aasay kadib oo albaabka hoosta ka xidhay yuu aayar intuu albaabkii oo xidhan soo dhex maray soo dhex istaagay oo uu ku yidhi assalaamu calaykum markaasay naxeen oo argagaxeen oo ruuxaan u maleeyeen markaasuu yidhi war waa anigii eega masmaarta meesha layga masmaaray gacmahayga masmaarkii baa ku yaalla weli masmaarta eega buu yidhi oo kelidii waranka laygaga dhuftayna wataas fiiriya buu kaalayoo itaaba tacaalo wajasuuni buu yidhi kaalayoo itaabta ruuxaan ma ihiye ruux ma iyo invisible ma ihiye jidh baan wataaye kaalayoo itaabta buu ku yidhi markaasay taabteen oo soo dhow markaasuu yidhi wax cunto ama haysaan markaasay kalluun ay haysteen bay wax ka siiyeen marka ciise masiix ayuu isku muujiyey ilaahay oo jidh watay laakiin isagu waa ruuxu meel walbaba ruux buu ku joogaa allah ruuxun ayay leedahay aayaddu ma garat aan ku socdo ilaaha sida baybalku qabo jidh buu qaatay oo dadkiisa wuu isu muujiyey ayay leedahay sida hadda aan soo sheegayno ilaaha baybalku dadkiisa wuu jecel yahay oo wuu isu muujiyey intuu jidh qaatay oo incarnation sameeyey tajasud baa la dhahaa af carabiga intuu jidh soo huwaday isagoo ruuxa isagoo naxad lahayn intuu isxadeeyey oo qof bin aadan iska dhigay ayuu u yimid dadkiisa fahmaysaa dadkiisa u yimid markaasuu cuntada la cunay oo la taabtay oo lala sheekaystay oo lala lugeeyey miyayna qiso cajiib ahayn waa qiso cajiib weeyaan marka waad arkaysaa qur-aankana arrintaa ka duwan baa inoogu iman doonta ee hamogaanin waxaa jirtay markaa nabi ibraahim oo saxaraha xaaraan degan dhulkaa Mesopotamia loo yaqaano maanta Ciraaq loo yaqaano oo dhul baadiya iska degan oo teendho meel uga dhisan tahay waa aqal baadiye weeye oo geed qurca iska hoos fadhiya ayay saddex nin u yimaadeen markaasay dhaheen assalaamu calaykum calaykum assalaam soo dhawaada markaasuu yidhi soo dhawaada soo ahay dhaafina buu yidhi wuu baryay yaa dhaqanka bariga waxa weeyaan reer bariga waxaa loo yaqaanaa dadkan badda Aasiya degan iyo carabta jasiiradda carabta dadka degan Middle Easternka waa dad aad martiqaadka ugu jecel weeyo aad hospitalityga iyo martida uu la soo dhaweeyo ilaa heer cibaaday ku dhowdahay markaasuu dhulka intuu isku dhuftay u jilba joogsaday ayuu wuxuu ku yidhi war addoonkiina ha dhaafina war wax aad jidka ku martaan aan idin siiye fadlan iyo biyo qabow nasta oo hay dhaafina buu yidhi martidu inay dhaafto ceeb bay ku tahay markaasay fadhiisteen markaasuu orday islaantiisii saaruu ku orday saarahay naa soo bax naa fatiiro samee buu 2 kiilo oo bur ah intaad isku qooshto fatiiro degdeg u samee xoolihiisii oo nabi ibraahim hanti badan buu lahaa boqolaal xoola ayuu lahaa oo lo iyo ari iyo wax kasta loodiisii oo halkan daaqaysa intuu ku orday oo shaqaalihi u sheegay ayuu wuxuu yidhi dibi laba jira hadda soo qalo oo soo muufeeya buu yidhi hadda dibi laba jiro waa markay xoolo ugu macaan yihiin hilibkoodu uusan adkaanin ayuu yidhi intaad gowracdaan isla markiiba soo mufeeyo isagoo foorno ah oo jilicsan keena buu yidhi saacadba wixii iyo ayna gaadhin ayuu caano gadhoodha iyo fatiiradii oo furinkii u taagan ama kimistii ama canjaradii ninbas u yaqaano iyo hilibkii oo shiilan ayuu soo hordhigay saddexdii nin markaasay way cuneen markay raashinkii cuneen oo dhargeen iyay soo kaakaceen markaasay iska tageen oo dhaheen mac salaama markay in yar socdeen ayuu saddexdii nin mid ka midu soo laabtay yaa qisada walla yaab ma ogtahay markaasuu yidhi ma ibraahim baan wax ka qarinayaa ibraahim adeegahayga iyo addoonkayga aan jecelahay miyaan wax sir ah ka qarinayaa buu ilaahay isku yidhi ilaahay baa soo laabtay ilaahay oo saddex nin iska soo dhigay ayaa soo laabtay markaasuu yidhi waxaanu u soconaa qowmu luud oonu soo halaagaynaa yaa qowmu luud ayaanu soo halaagna dembigoodaa batay cabashadooda samada iigu timid buu ilaahay yidhi cabashadooda ayaa samada iigu timid marka waxay ahayn dhaqan xun baa laga yaqaanayoo nimanka ayaa loo tegi jiray oo loo galmoon jiray dhaqankaasi maanta meelo badan buu ku fiday hadda waaba la difaacaaba yaa ma rabo inaan magacaa sheegee waa la difaacaa soo ma garanaysid marka ibraahim wuu gartay inuu dad caadi ayn ahayn nimankani uu ilaahay yahay waxa la hadlaya horta intayna tegin buu wuxuu ilaahay ku yidhi away xaaskaagii saara markaasuu yidhi waa tagay aqalka ku jirta
markaasuu yidhi bisheeda wiil bay kuu dhali doontaa wiil saaro oo 75 jir dhaaftay oo habar gabowday ah oo dhalmo iyo ma garanaysaa caado waa aan dhaweyn kala tageen ayuu wuxuu ilaahay yidhi bisheeda wiil bay kuu dhali doontaa markaasay ka tiri teendhada gudaheeda markaasuu ilaahay ku yidhi maxaad u qososhay markaasay tiri maanaa qoslayba waa yaxyaxda moogta maanaa qoslay way dafirtay markaasuu ilaahay ku yidhi bisheeda wiil bay ku dhali doontaa yaa marka ibraahim wuu gartay waa loo bishaareeyay soo maaha markaasuu ilaahay ku yidhi waxaan u soconnaa qowmuluud qowmuluudna ibraahim bay ag deganaayeenoo ibraahim iyo luudba way soo raaceenoo waxay soo degeen dhulkan kancaan loo yaqaano marka xoolo badan bay labadu lahay marka ibraahim baa yidhi war xoolaheenna iyo inagu iyo inaan isku dhicna walaalaynu nahay dhulka dooro ama xaggaa deg ma wada deganaan karree oo iga guuro dhulka meel dooro meeshaa degtay meesha kalaan degi marka Sodom iyo Gomorrah oo barwaaqo ah oo aad u qurux badan buu doortay baa la yiri waana meeshii nimanka xun deganaayeen oo nimanka raadsada oo naagahaba aan waxba ku falin meel baas buu doortay markaas isagii loo soo dhacay Luut oo loo soo dhacay oo liiri war kan isqarin hay war ka baxbaali waxa albaabkan ku jabinay markaasuu baryootay war ilaahay ka cabsada war walaalayaal widaaya war gabdhihiisii uu keenan la yiri markaas waxay dhahan quraanku xataa uu ka sheekayna maalana min banaatika min yaa leeydi min xaaje war gabdhaha ma doonayaan adaan ku doonaynaa baa leeydi markaas waagu ku bari marka waxba qabsaday Luutna nabi ma aha sida Bible-ku qayb quraanka nabi buu ku yahay laakiin Bible-ka Tawreed nabi kuma aha iyo Bible-ka nabi ma nin caadi abu aha oo fariin loo soo dhiibay wax waxyo uu helay waligi ma jirin nin caadi oo mu'min abu aha oo Ibraahim ay qaraabo yihiin oo ilmaadariyiin marka ilaahay baa u tagay markaasuu Ibraahim baa yidhi oo miyaad isla halaagaysaa kuwa fiican iyo kuwa xunxun eebo ma dadka xunxun iyo dadka fiican baa isla halaagaysaa miya wuxuu yidhi addayaanu kulla al-ardi laa yasnacu cadlan waa aayad cajiiba addayaanu kulla al-ardi laa yasnacu cadlan ayuu yidhi maka koonka abuuray ee caadilka ah yaan cadaalad falaynin mu'miniinta iyo kuwa xunxun ee sharwadayaasha ah een kuba rumaysnayn miyaad isla halaagay buu ku yidhi markaasuu ilaahay yidhi haddaan 50 mu'miniina ka helo maba halaagayaba haddaan qowmuluud dhulka Sodom iyo Gomorrah aan 50 qof oo mu'miniina ka helo waan iska daynayaa markaasuu Ibraahim yidhi 40 hadday yihiin 40na waan daynayaa 30na waan daynayaa 20na waan daynayaa 10 markuu soo gaaray nabi Ibraahim buu iska daayay wixii shooday 10 markuu soo gaaray yuu iska haray marka waxa uu u dooday oo uu difaacay marka ilaahay wuxuu u tagay isagoo saddexna iska soo dhigay iyo qowmuluud u tagay luud oo albaabka lagu garaacayo oo la leeyahay farwarya edeb ma qabtide oo la rabo in la kufsado oo qaylaya yay albaabka ugu galeen markaas intay albaabkii dhinac isaga tuureen ilaa ilaahay ba intuu albaabka dhinac isaga tuuray oo nimankiina indha tiray ayaa luud iyo gabdhihiisii laba gabdhood buu lahaa baa uu leeyahay kitaabku iyo xaaskiisii bay qaadeen marka ordaa la yidhi way inkay aad u ordi kari waayeen bay gacmaha qabteen islaantii mooyee luud iyo labadiisii gabdhood bay gacmaha qabteen loo ordeen waxaa la yidhi ilaahay ku yidhi nina yuusi qofna yuuna dib eegin sababta dhulkii waxa intii la rogay dhulkii oo la qasfi ku dhacay oo xag kale loo rogay ayaa kibriid sida naabaalka oo kale lagu da'siiyey way gubteenba dadkii way gubteen iyo dhirtii waa meeshan maanta ay ku taal Bahrul Mayd badda dhimatay baa la dhahaa waa bad dhimatay dhir kama baxaan beer kama baxaan khudrad kama baxad waa dhul gubtay weeyaan waagaas la rogay biyaha baddaas Bahrul Mayd waa meel maanta loo dalxiiso Urdun iyo Israa'iil baa u dhaxaysa waa biyo ay mineral ka buuxdo iyo macdan ta lagu maydho oo ma garanaysaa jirka u fiican oo aad baa loo jecel waa lagu qabaystaa caafimaad badan baa laga helaa marka qisadu saasay ahayd waa qiso dheer waan soo koobayaaye quraankuna wuu soo xigtay oo wuxuu yidhi saddexdii dhin miyaad ka war haysaa buu quraankuna yidhi oo quraanku aad buu qisada uga sheekeeya bal aan eego in aayad quraan halkan ku soo aroortay waatan isagoo qisadan quraanku soo xiganaya aayadaha aan ku akhriyay waa kitaabka Tawreed bilowgii cutubka 3 aayadda 8 ilaa aayadda 10
qisada nabi ibraahim u yimid ilaahay oo saddex nin iska soo dhigay oo jir soo qaatay quraanku qisadii wuxuu ka dhigay malaa'ig inay yihiin saddex nin oo malaa'iga saddex malag oo bini aadan iska soo dhigay inay yihiin ayuu quraanku ka dhigay ana ku akhriyo aayad quraan هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت للمسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعجيب صمها وسورة الجاثية وين سورة الجاثية chapter كوية كنتن آية اللباتن يسدح صدح يلباتن صدني اللح مركا وحي لا هاي مكو يمد محمد سد مرتدي إبراهيم بالي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمون مركا سد حدين باو يمد مركا سوير وسود وهذا سلام قوم مكرمون آد بان إذن كرامي إذن شرفي سلام عليكم وسود وهذا وير مركا سوق بحال هذا حول أسوق عليه فجاء بعجل سمين دبي قول أيو أسوق عليه فقربه إليهم مركا ويعوني واين فأوجس منهم خيفة مركا سويري واو أنا محاك هون ملاهيني إدلان بأسعودين بوير لكن كان هير بريغا سومالدنا ويليدا هاي مرتدا قفك مرتدا كوة مركا مرتي صورت هدو عنتدا ديدا وعدو بلا يكو رسع دايونو كتلو ها مركا قرآن كوحو ليهي آيادها نميلا بدل ما القرآن كسو عرورين قصدني ولكن تبايبل كي تنوي كلا دوان تاي يا التوراة waxaa leedahay ilaahay buu ahaa cuntadina wuu cunay ibraahimna wuu u bishaareeyay ya saara oo wuxuu bishada wiil baad dhaleysaan oo isxaaq buu ugu bishaareeyay qowm luud buuna u socday laakiin quraanku wuxuu leeyahay qoladii way u socdeen saddex nig baa ahayn malaa'ig bay ahaayeen fama khadbukum ayuha almursalun buu nabi ibraahim maxaa cuntadina waa diideen niyo maxaa tihiin buu waa badan ka shaqeeyay markaasay dhahan innaa ursilnaa ilaa qawmin mujrimiin qola dembiilayaala oo faasiqiina inaan soo halaagno yaa naloo soo diray saasay dhaheen marka qisadii oo kala bedelan yaad arkaysaa laakiin isku ruud oo isku meel ka timid oo 90% isku mid ah yaa marka ilaaha bible-ku jid buu qaatay dadkiisa u yimid waa la arkay waa la cunay waa la qoslay waa la lugeeyay laakiin ilaaha quraanku shaqo kuma laha waxa soo dhan لما أركو لما تابتو لو ما دوادو إيشو ما قبطو لا تتركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع البصير 10 كأني هالكاس كنت شوقا مالك لا أيام كجهل دنا مركان قرآنك أقدمنا إلها قرآنكو سده سفو ينكسو عن نوعه مركاسان كهل دنا مركا أدبان دي سلامة يا ساسي نبت كليم